kulan lagu daahfuray waxbarashada jiilka ee sanadka 2016 ayaa ka qabsoomay xarunta gobolka Qorraxyo ee magaalada Qabridahare. Kulankan oo ku saabsanaa tayeynta waxbarashada ayaa wax ka soo qaybgalay mas'uuliyiinta gobolka Qorraxyo kuwa maamulka magaalada Qabridahare, hogaaminta degmooyinka gobolka, bahda waxbarashada iyo xubno ka socda xafiiska waxbarashada ee dowladyaanka Soomaalida. Shirkan oo furay gudoomiyaha gobolka Qorraxyo iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka ayaa hogaaminta degmooyinka kula dardaarmay inay sii dhaadhiciyaan qorshaha wax laga bedelayo tayada waxbarashada sanadkan soo socda 2016. markaynu ka hadlayno waxbarashada jiilka aan leenahay jiilku sidoo hadda madaxweynuhu carab ku dhufanayay jiil lumay wakiil laha jiilku marka hadda ma lumin horeyba u lumay wakiil laha jiilkii saa u lumay sideen u soo celinaa weeyaan sideen u soo celinaa oo jiilkani aan uga dhignaa jiil wax bartay aqoonna leh aan uga dhignaa سادرتين مركز دوكسية دني وحكوسا تحل في عن حل مهم حل ميزانية دي لقبني وردوكسي قاسي ليفل 3 مقارسين كرنا سقاشن يا سقال برسنت برياضة سقاشن يا سقال برسنت بالي يديجان كأنه مريا ليفل دي كو يلا بقى هدواي ليفل كو يلا ليفل لبا وزيرو صدح يا أفر بمركها يا دوكسي ده لو حساب تمام هذا أنا ساسو يتهاي صدح يتمن دوكسي بس ديجان كده نانغ هل كيبان هذا أنا كرحي هان هل كسي هالليبا صدح يتمن كي دوكسي من هل كسي هل دوكسي بس والليفل كاس تقدر مركها وحبرشدو ولفدبرت بني آدمك ما دام لفدبرك بني آدمك تهاي أنت يدي يتردي iyo wax kastaba la hagaajiyo waa muhiim in la sii dhaadhiciyo tababarkan oo loo sii dhaadhiciyo degmooyinkii oo laga qabto degmada oo qabalaha laga qabto oo bulshadii loo qabto bulshadii la wacyi geliyo maanta resource-ga tusaale ahaan degmo X aan tusaale soo qaata degmada Shilaabok iyo miisaaniyadeedu kuma filnaanayo inta dugsi ay leedahay inta dugsi شلابا كقر لكن دي قرب شوك بدن هي قرن شوك بدن أو ماشي شوكا هدي وعي جلنا لقى سماي أو لو عيال كاجي ماشي نديجنا ين يعني قد الدولة هانا وحن بنكرها إذا كان واحد سمايسان ده وحن قدر صدا كدمنا لبراروتشيو ده وحي كنيسة اسكو ضيفي عم بكنيسة مركا إنه كغيب قال كبرشة إنه كل كور علايس كسر ومهم bulshadu inay kala qayb gasho ay bulshooyin badan baa laga istaagay sida wax looga bedel lahaa taas marka waxay keentay in waxbarashada jiilka kor loo qaado markii taa la leeyahay waa waxbarashada tayadeeda iyo tiradeedaba qaabkii loogu talagalay waxbarasho u socota inay noqoto hadday noqoto dadka ardayda ee wax baranaya goobta wax ku baranayaan hadday noqoto cidda wax baraysa iyo hadday noqoto agabka wax lagu barayay intaba inay noqdaan wax tira ahaan iyo tayo ahaanba meel saaran oo laga dadaalay dhanka kale inuusan noqonin wax hal jaa ka socdo oo uu noqdo wax dhanka bulshada lafteeda contribution ay ku yeelanayaan oo ay noqoto lahaanshaha wax ka imanaya bulshada sidaynu ognahay hadda iskuulada gaarka loo leeyahay oo kale markii meelaha caasimadaha aad tagto sida hadda xarunteena gobolkaba ka jirto ardayga waxa laga yaabaa 1500 oo bir inuu ku dhiganayo halkii arday 1500 dhanka kale waxay u soo galaysaa oo shakhsigana uu doorbaday inuu ciyaalkiisa halka geeyo waxaa hanaanka waxbarashada jiilka ka hirgashan oo ka shaqeynaya area-ga nadaafadeedii iyo bay'ada ay wax ku dhiganayaan iyo wax ay dhiganayaanba haddii la dhaha agabkiina reeshowg loogu talagalay baa yaa meesha yaala taasay markii qofka wuxuu u doorbidayaa iskuul bilaasha oo ku yaala halkan dariskiisa intuu ciyaalkiisa hormariyo inuu geeyo mid kharashaad badan ay kaga baxayaan inagu marka heerka la rabo inaan gaarno
waa heerarka iyo meel ka sarreyso hal dhana kama iman kartee waa bulshada in lahaansho la dareensiiyo taa unbay ku iman kartaa marka qaabkii loo dhaadhicin lahaa fahamka loo gaadhsiin lahaa ilaa heer tuulo hoosaad innagay nala jirtaa oo inaan ka shaqayno loo baahan yahay